doorasho madaxtinimo oo maanta ka dhacday magaalada Cadaado ayaa baarlamaanka maamulka Galmudug State dhawaan la aasaasay waxa madaxweynaha ay u doorteen Cabdikariim Xuseen Guuleed doorashada oo laba wareeg ka koobnayd ayaa wareegeedii koobaad waxa ku haray murashax Axmed Cabdisalaam wareegii labaadna waxa uu soo wada gudbiyay Cabdikariim Xuseen Guuleed iyo sidoo kale Axmed Macalin Fiqi Guuleed ayaa 49 cod waxa uu kaga adkaaday murashax Axmed Macalin Fiqi oo isna helay 40 cod Cabdikariim Xuseen Guuleed waa wasiirkii hore amniga qaranka ee xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud ase yeeshee waa uu iscasilay kadib markii uu sheegay inaanu xilkaasi sii wadi karin arrintaas oo ka dambeysay weeraro iyo sidoo kale falal amni darro oo si xiriir uga dhacay magaalada Muqdisho iyo meelo kale dhanka kalena Cabdikariim Xuseen Guuleed waxa uu kamid ahaa saraakiisha ay saaxiibtinimada dhanka siyaasadda ka dhaxaysa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sida aadka ahna ugu dhuun daloolo filla Soomaaliya si kastaba ha noqotay Cabdikariim Xuseen Guuleed haatan waa madaxweynaha maamulka cusub ee Galmudug State